soo dhawaada akhyaarta talaabooyinka caawinaya yareynta cabsida iyo fagaara ka hadalka waxa suurtagal ah in xilliga ardaynimada iyo waqtiyada noloshu ay bilowga tahay aanu qofku dareemin baahida uu qabo fagaara ka hadalka laakiin markasta oo nolosha hore ugu sii socdo waxa uu cadaanaysa muhiimadda ay leedahay in qofku dad ka hadli karo inuu su'aalaha fagaara lagu weydiiyo uu si kalsooni leh uga jawaabi karo iyo inuu adkaysi u yeelan karo qosalka faalooyinka taban iyo erayada quursiga ah ee mararka qaarkood kaga imaan kara dadka uu la hadlaayo qodobadan soo socda waxay qofka ka caawin karaan inuu xakameeyo ama meesha ka saaro cabsida uu ka qabo fagaara ka hadalka kow raadi fursadaha aad dadka kaga hadli karto xitaa haddii ay yihiin 3 qofood oo kaliya ku bilow dadka aanu ka hor hadalkooda dhibaatada kugu keenayn sida saaxiibadaada xubnaha qoyska kuna dadaal in marka aad hadlayso uu codkaaga kor ahaado 3 ka hadal mawduucyada aad jeceshahay marka aad ka hadlayso waxa aad jeceshahay dadka aad jeceshahana aad ka hor hadlayso way adag tahay inaad dareento cabsi waxa aad xakameyn karaysaa acsaabtaada 4 bilowga naftaada fahamsi xaqiiqada inaadan ahayn qofka ugu fiican ee hadli doona sidoo kalena aadan noqon doonin kan ugu xun taasi waxa ay ka caawinaysaa in daldaloolyada hadalkaaga ka soo baxda aanay kaaga tagin cabsi caqabad ku noqoto fagaara ka hadalkaaga dambe shan markasta oo hadasho ku dadaal inaad ogaato dareenka iyo aragtida dadku ka qabaan hadalkaaga xitaa haddii ayna hadleen ku dadaal inaad indhaha la raacdo oo aad ogaato dareenkooda kana akhrisato indhahooda qor dareenada toban iyo dhaliilaha ay dadku ka qabeen hadalkaaga kadibna ku dadaal in aad wax ka barato oo aanay mar dambe soo noqon inaad jamaahiir ka hor hadashaa waxa kaliya ay u baahan tahay in aad dhisto hormarisana qisaska aad rabto inaad dadka u sheegto 7 inaad sheeko iyo hadallo ka jeediso goobtaada shaqada iyo inaad shirarka iyo kulamada ka hadasho marka ay munaasabadaha tahay sidoo kale ku dadaal daawashada khudbadaha laga jeediyo fagaarayaasha kala duwan waxa ay ka caawinaysaa inaad ka qaadato tilmaamo iyo duruus ka caawiya hadalkaaga mustaqbalka 8 noqo dhageysto fiican marka ay hadlayaan dadka waxgaradka u saaxiibka ah iyo kuwa sheekada badan ama jeediya hadallada ugu quruxda badan fagaara ka hadalka ku dadaal inaad dhageysato qof kastana waxa uu hadlaa inta uu dhageysto ugu dambeyntii ku dadaal akhriska iyo inaad garaadkaaga dhisto adigoo akhrinaya buugaagta dhaqanka iyo kuwa fagaara ka hadalka qof kasta qofku ka akhris badan yahay waa uu ka hadal heli og yahay waa uu ka hadal suuban yahay waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeena fadlan haddii hore noola joogtay like saar muuqaalka